السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. telemedicine mustaqbalka caafimaadka takhaatiirta online-ka ah iyadoo aan ognahay in adduunku uu gelgelay cudurkan dilaaga ah haddana weli waxaa jira dad xanuuno kale ah hayaan oo aan imaan karin hosbitaalada. maxay kula tahay weeye xalka ugu muhiimsan ee lagu badbaadin karo laguna daweyn karo dadkan? waxa uuna xalku noqday in la adeegsado tiknoolajiyadda casriga kan lana adeegsado telemedicine oo laga faa'iideysto tiknoolajiyadda casrigan iyo talooyinka caafimaadka. telemedicine waxay soo bilaabatay kala barkii qarnigii 20aad. maraakiibta dusheeda ayay takhaatiirtu talooyin caafimaad kaga dhex bixin jireen iyagoo isticmaalaya raadiyowga. hosbitaalada caadiga ahna waxaa laga hirgeliyey 1950yadii iyagoo samayn jiray la talino caafimaad. 30kii sane ugu dambeeyey ayuu aad u siyaaday isticmaalka telemedicine iyagoo inta badan takhaatiirtu ku gudbiyaan talooyin caafimaad oo la xiriira neefta, sonkorta iyo wadne xanuunka. waxa uuna barnaamijkan telehealthigu aad u anfacay dadka ku nool tuulooyinka oo aan heli karin takhaatiir si joogto ah. baaritaano lagu sameeyey waddanka Mareykanka kadib caabuqa dilaaga ah waxa uu sheegay in dadweynuhu 66% ay diyaar u yihiin inay isticmaalaan telemedicine. 8% dadkaasna ay hore u isticmaali jireen. markii uu caabuqan yimaaday ayaa waxaa la raadshay sidii xal waara looga heli lahaa bukaanka xanuunsan. sidoo kalena dowladaha adduunka ayaa sahlay barnaamijkan oo dowladda Mareykanku ka mid tahay, waxayna u ogolaadeen shacabkoodu inay isticmaalaan telemedicine-ka si lacag la'aan ah. telemedicine-tu waxay badbaado u tahay dadka iyo sidoo kale kumanaanka takhaatiirta ah ee awooda inay gurigooda ka shaqeeyaan, talooyin caafimaadna ku bixiyaan iyagoo adeegsanaya Skype-ka ama Zoom-ka si live ahna ula xiriiraya bukaanka. tani waxay sidoo kale sahashay in takhtar gobol kale jooga aad la xiriirto si toos ahna uu ku daweeyo ama talooyin caafimaad uu ku siiyo. waxa uuna soo galay teledoc healthigu 10 fikradood ee lagu maalgashiga badan yahay sidii uu caabuqan u yimaaday. sidoo kalena shirkadaha tiknoolajiyadda waaweyn ayaa iyaguna bilaabay inay diiradda saaraan sidii ay u horumarin lahaayeen telemedicine-ta una maalgashan lahaayeen. waxaana ka mid ah shirkadahaas shirkadda Microsoft iyo Google, iyagoo kula talinaya dadweynuhu inay isticmaalaan barnaamijkan. balse wax kasta oo faa'iido leh waxa uu leeyahay nuqsaan. waxaana ka mid ah takhaatiirtii oo la qabsan waayey barnaamijkan, sidoo kale oo ay ka qiimo jaban tahay marka aad takhtarka si toos ah ula kulmaysid, taas oo dhalisay inay hoos u dhac dhaqaale ku keento bahda caafimaadka. waxaa jirta qaabab aan lagu daweyn karin dadka online-ka. xanuunada qaybtoodna u baahan yihiin qofkii oo aad la joogto lagana warhayo. waxay caqabad ka jirtaa sida loo isticmaalayo adeegan, waxaana loo baahan yahay internet fiican oo joogto ah si bukaanka iyo takhtarkuba isku arkaan una wada socdaan. waxaa kale oo jira dad aan heli karin goob ay si khaas ah ugu hadlaan oo takhtarka kula kulmaan. sidoo kalena waxaa jira dad badan oo waayeel ah oo aan isticmaali karin tiknoolajiyadda. waxaa jira hosbitaallo waaweyn oo ka mid yihiin Cleveland Clinic Ohio waddankaasi Mareykanka ku yaala iyo Mount Sinai ee ku yaala New York oo bilaabay barnaamijkan si toos ahna ula xiriira bukaankooda. waxayna bilaabeen wacyigelin bukaankooda ay wacyigelinayaan si ay u isticmaalaan telemedicine-ta. laakiinse weli waxaa jira isbitaallo aysan bukaankoodu ku baraarugsanayn isticmaalka barnaamijkan telemedicine-ta. maadaama uu caafimaadku ka mid yahay ganacsiyada oo shaqaale iyo kharashaad siyada ahba ay baxayaan, waxay saameyn xooggan ku yeelan doontaa bahda caafimaadka maadaama uu caabuqan dhibaato gaar ah u geystay, siiba waddamada uu caabuqan dhibaatada gaarka ah ugu sameeyey, iyada oo takhaatiir fara badan la waayi doono, qalabkii oo yaraanaya, bukaankii uu muddo jiifaya isbitaaladii, taas oo laga yaabo inay hosbitaallo fara badan ku riddo iflaas ama in ay kacaan. muxuu noqon doonaa mustaqbalka telemedicine-tu ama telehealthiga haddii cudurkan dilaaga ah meesha ka baxo? su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye, qof la qabsaday isaga oo gurigiisa jooga in uu takhtarka la kulmo uuna isticmaalo qaabkan online-ka ah ee telemedicine-ta, ma u eg tahay inuu takhtar aadi doono? inkastoo aan laga maarmi doonin in takhaatiirta lala kulmo, haddana waxaa isbedeli doona fikirkii ahaa inaad takhtar shaqo uga soo tagto si aad ula kulanto ama xanuun sahlan aad takhtar uga aado, adigoo ka doorbidi doona inaad telemedicine-ta kala hadasho kalana xidhiidho takhtarka. isbedeladaas kadib waxay sahli doonaan in meel dhexe laisugu yimaado oo xataa takhaatiirta laftirkooda la dhiirigeliyo si ay barnaamijkan u howlgalaan. dhiirigelintana waxaan ka wadaa in hanaankan loo sameeyo qorshe dhaqaale oo aad u fiican. aad ayaad u mahadsan tahay daawashadaada. fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeena nagu soo biir, subscribe sar. mahadsanidin.